السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن داوديال ميل كستا يساعد والبا أو joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeedii arrimaha bulshada oo nooga barateen toddobaadkiiba mar inaan idinka soo gudbino TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada London. barnaamijka daawadayaal sidaad ogtihiin mar walba waxaan ku soo qaadanaa mowduucan isleenahay dadweynuhu malaha maanta kaasay ugu jecel yihiin. maanta waxaan ku soo qaadanaynaa gobolka Scotland oo ah gobol ka tirsan afarta gobol ee dalka UK ka kooban yahay oo dhawaan laga qaaday aftidaas oo ay dadweynaha reer Scotland ay ku go'aansanayeen inay ka mid ahaadaan dalka UK iyo inay noqdaan dawlad gaar ah oo madax bannaan. 18kii bisha September 2014 oo sanadkan aan ku guda jirno ayaa dadweynaha reer Scotland waxay u dareereen goobaha codka si ay codkooda u dhiibtaan inay ka sii tirsanaadaan dalka UK iyo inay noqdaan dal iskii u madax bannaan. aftidii laga qaaday gobolka Scotland oo kamid ah dalka UK ayaa waxay ahayd mid guud ahaanba dalka UK ruxday iyo wadamo badan oo dunida kamid ah. dadkii u codeynayay inay Scotland noqoto wadan gaar ah oo ka madax bannaan intiisa kale ee dalka UK ayaa inta aan lagu dhawaaqin natiijada ka hor waxa ka muuqatay rajo aad u wanaagsan iyagoo ku rajo weynaa inay noqon doonaan dal madax bannaan oo ka hoos baxa midowgii ay ka tirsanaayeen dalka UK balse rajadoodii mayna noqon sidii ay rajaynayeen ololihiina waxa uu noqday olole dhicisoobay. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka UK Gordon Brown oo ka soo jeeda gobolka Scotland ayaa qayb weyn ka qaatay sidii ay u codeyn lahaayeen dadka doonaya inay ka sii tirsanaadaan midowga dalka UK. Let's keep our UK pension, let's keep our UK pound, let's keep our UK passport. Gordon Brown oo la hadlaya shacabka reer Scotland waxa uu ku yiri waxa inoo wanaagsan inaan ka tirsanaano dalka UK, waxa inoo wanaagsan inaan baasaboorka UK haysano, waxa inoo wanaagsan inaan lacagta UK isticmaalno, waxa inoo wanaagsan inaan midowgii soo jireenka ahaa ee dagaalkii labaad wada galnay iyo dagaalkii koobaad uuna noqonin mid burbura. So I would say to everyone voting on Thursday, please remember, this isn't just any old country. This is the United Kingdom. This is our country. dhanka kalena ra'iisul wasaaraha dalka UK David Cameron oo hadlayay ayaa yiri waxaan jecelahay inaan idhaahdo qof kasta oo maalinta Khamiista codkiisa dhiibanaya halkani maaha wadan kale, halkani waa UK, waa wadankeeni, mana aha dhaqaalaha iyo awoodda military aan leenahay to ina weynaysay ama wax inaga dhigtay ee waxa weeye qiimaheena tasaa inoo weynaysay qiimaha la yiraahdo British value xurriyadda iyo waliba cadaaladda taas ayaa ina midaysay oo dadka inaga sarreysiisay. milyanis naga mid ah ayaan rabin in ay burburto midnimadii soo jireenta ahayd halka ay in badanina doonayaan in Scotland noqoto dawlad gaar u taagan. dalka UK waxay noqon doonaan mid aad u ixtiraama wax kasta oo ay noqoto ama wax kasta oo ka soo baxa natiijada reer Scotland ay codkooda dhiibanayaan. fariinta ugu weyneed ee David Cameron uu u diray shacabka reer Scotland ayaa waxay ahayd in dalka UK uu yahay qoys aad u ballaaran muddo dheerna soo jiray burburkiisuna uu labada shacabba wax yeeli doono haddii ay u codeeyaan inay ka sii tirsanaadaan midowga dalka UK inay u codeynayaan mustaqbal wanaagsan oo caruurtoodu ay hesho. si kastaba ha ahaatee shacabka reer Scotland ayaa noqday shacabkii ugu horeeyay ee dunida diida inay noqdaan wadan iskii u madax bannaan doortayna inay ka mid ahaadaan midowga dalka UK iyagoo 55% ay u codeeyeen inay ka tirsanaadaan midowga UK halka 45%na ay u codeeyeen inay noqdaan dal iskii u madax bannaan taasoo natiijadeedu ay noqotay inay ka tirsanaan doonaan dalka UK. iyadoo barnaamijka aan kaga hadlayno aftidii laga qaaday dalka UK ayaa waxaan iyaduna meesha ka maqnayn waxyaabaha Somaliland ay kaga dayan karto aftidaasi. waxa barnaamijka igala qayb qaadanaya Maxamed Warsame Boos oo dhinacayga fadhiya oo kamid ah dadka siyaasadda uu faraha dhuuban ama aad ula socday aftida ka dhacday Scotland 18kii bisha September. ahlan wa sahlan Maxamed. فرقان آدي أد بعض ما هتصنتهاي. مركو هراء كسودو برنامج كأرمها بولشة TV كقرنكا آدي أد بان كوجم هاد عليني الناس إذا ونكسر برنامج كنا قلنا قب قاعدين يسد. أد بعد كوجم هتصنتهين بعض TV كقرنكنا وان سلامة يعني. أنا محمد هذان برنامج كنا قد قلنا. 18kii bishan waxa laga qaaday afti gobolka Scotland ee ka tirsan dalka UK. maalintii Khamiistii ay ahayd maalintii ku xigtay Jimciin jawaabtii ayaa soo baxday. ولا سعودي بدو دير أفتيدا لديارنا وقتيادا سو مرتي سياسيين كقيب قادتي كوي دوني إنه قاعد أول الكيوينا ويستمنستر كو هيسي بل أدقو
dadweynahana daawanaya wax yar ma u falanqayn kartaa sidaad u aragtay iyo sida u dhacdayba ها waad ku mahadsan tahay horta marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan fikir yar aan dadka ina daawanayaan ka siiyo taariikhda Scotland Scotland runtii taariikhdeedu ama dadka Scotland ku nool ilaa 10 sano ayay ku noolaayeen laakiin se waxa taariikhdeedu aad iyo aad ay caan u noqotay markii Romansku nimankii la oran jiray qarnigii koobaad ay qabsadeen dabeeto dad leeyahay waxa la oran jiray Caledonia ayaa markaa la oran jiray marka waxa ku noolaa dad la yiraahdo Picti oo Pictigaasu Latinka waxay Romans ku bixiyeen the painting ones waxa way dadkii malaasna okay dabeeto mudday hayeen qarnigii saddexaad ayay u taag waayeen dadka Romansku dabeeto dib ayay uga soo noqdeen oo waxay sameeyeen gidaar England iyo u dhaxeeya iyo Scotland صح dabeeto dagaalo badan ayaa ka dhacay markii dambena waxa yimid Vikingska nimankan Scandinavianka way xukumeen dabeeto dadka la yiraahdo Scotigu waxay ka yimaadeen Ireland dabeeto dagaalo ayaa Pictiga iyo Scotiga ka dhex dhacay dabeeto muddo badan ayay dagaalamayeen xukun ku dagaalamayeen laakiin markii ugu dambeysay dadkii Vikingska ahaa ayaa heshiisiyay oo ay midoobeen oo marka dalkii loo bixiyay Scotland kun iyo 603 ayaa boqoradii la oran jiray Elizabeth first oo England xukumi jirtay cid dhaxasha markay dhimatay la waayay dabeeto boqorkii marka Scotland xukumi jiray oo la oran jiray David Mayo James the 5th the 6th sorry igara lahada kii lixaad ayaa marka xaq u yeeshay inuu xukumo waa 1633 weeyaan dabeeto labadii dal runtii la isku darin laakiin se uu wada xukumay midba gaar ahaan buu xukumay laba baarlamaan bay kala yeesheen markii ugu dambeysay adigu 1703 ayaa la isku daray baarlamaankii Scotlandna ay hadeed maayo laga takhalusay ay dal Union Act sameeyeen wax la yiraahdo warqad ay wada qoreen inay midoobaan halka taas weeyaan talabaad aftidan dhacday waa afti runtii xiiso gelisay dad fara badan iyo adduunka oo dhan aad iyo aad u xiiso gelisay si way u dhacday cajiib ah oo dimuqraadiyada oo dadka adduunka oo dhan uu aad iyo aad magaranayay u daawanayay u indhaynayay dalal fara badan oo la mid ah Scotlandna xiisay gelisay in magaranayay ay isiraahdaan iyaguna inay doontaan aftidaas oo kale ay qaadaan laga qaado runtii 2 sanadood horteed ayaa prime ministerka dalkan Britain ay wuxuu saxeexay inuu afti ay Scotland ay qaado inay kaligeed istaagayso iyo inay unionka ay ku sii jirayso laakiin se Alex Salmond oo isagu madax ka ahaa aftida markaa oo xisbiga haysta imka Scotland uu yahay madaxda ka ah wuxuu doonayay wax la yiraahdo in lagu daro Devomax waxa weeye waa maximum devolution in qodobka saddexaad laga dhigo prime minister laakiin waa diiday wuxuu yiri waa ha iyo maya ay noqonaysaa aftidaas muddo dheer ay soo dhuukinaysay ma ogtahay aftidaas campaign-kaasu ay soconaysay markii ugu dambeysay ay dhowr week ka hadhay ayaa Ingiriisku wuxuu arkay arrintan inay dhab tahay oo khatar ay ku tahay magaranaysaa midnimadii Britain dabta halkaas campaign cusub ay ka bilaabeen tartan ah oo ay doonayeen dalkii Scottishka ahaa oo boqolkiiba 50 iyo dheeraad doonayeen inay dalka ay xornimo qaataan ay dib u soo ceshadaan oo yiraahdaan wax badan baanu idin siinaynaa xuquuq fara badan oo ka dadnaa markaa baanu idin siinaynaa maxamed sidaan ognahayba dadweynaha reer Scotland aad bay markii hore ugu hanweynayeen aftidan inay dawlad gaar ah noqdaan way jeclaayeen balse maalmihii ugu dambeysay imika adiguba noo sheegtay isbedel weyn ayaa yimid isbedelka inta badan dadka siyaasadda indhaynaya waxay u eedeynayaan ama ay leeyihiin waxa isbedelka keenay maaha only David Cameron iyo dawladda Westminster laakiin waxa qayb weyn ka ciyaaray Gordon Brown oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore oo isaguna ka soo jeeda dalka Scotland taa maxaa ka jira aad iyo aad waa ruwayaan horta marka ugu horeysa Scotland dadka
embiyada ka soo baxaa waxay u badan yihiin laborka oo ilaa 49 ayaa ka soo baxaa conservative-ka mid kaliya ka soo baxay dabeeto haddii laborku uu waayo Scotland de wuxuu embiye fara badan oo uu ku biirsan jiray baarlamaanka caadiga ah ee Westminster ayaa meeshii ka baxaya marka conservative-ka ayaa quwad weyn oo dheeraada yeelanaya dabeeto taasay waxay ku khasabtay Gordon Brown oo prime minister ahaan jiray chancellor of exchequer buu ahaa markii hore xagga finance-ka markii dambena prime minister buu noqday inuu degdeg Scotland oo dalkiisii ah oo dhulka soo geli jiray inuu degdeg ugu noqdo oo campaign weyn oo culus uu qaado oo yiraahdo hanagaga tagina conservative-ka haddii my welfare-kii iyo nidaamkii Britain aad uga barateen ayaanu hagaajin doonaa insha Allah waana halkaasaan ka sii wadaynaa xuquuq fara badanna waad ku heli doontaan haddii aad magaranaysaay aad ku lamaanataan England iyo regionada kale sidaad markii hore ba sheegtay wadamo badan oo adduunka ah ayaa jiro midow ku nool oo wadamo kale la midoobay rajo weyn bay gelisay tani markay arkeen balse rajadii haddana waxaa ka soo dhex muuqatay aftidaasi haddii si dimuqraadiyad sidii tani u dhacday oo kale ay u dhacdo wixii ka soo bixi doonay adiga maxamed ahaan sidaad u aragtaa wadan la siiyay xornimadiisii oo lagu yiri codkaaga ku xidhan tahay inaad wadan gaar ah noqotid oo haddana diiday taas sidaad u aragtaa horta marka ugu horeysa Scotland maadaama ay yesterday oo ay ogolaatay inay unionka ku jirto misna dalka Ingiriiska siyaasadiisu sidii hore ma noqonayso oo business as usual noqon mayso sababtoo waa maxay xuquuq fara badan oo ay lahaan jirin ay Scottishku dalka Scotland ay helaysaa oo taaway ku guuleysteen Ireland way helaysaa haddii maayo Welshkuna way helayaa England xitaa waxa la yiraahdo West Lothian baa jira oo ujeedadu West Lothian question baa jira waxa la yiraahdo ujeedaduna waa maxay waxa weeye Englandna way inay yeelataa xuquuqdeedii ay gaar ahaan u yeelataa oo la mid ahaataa Scotland iyo Ireland iyo Wales marka maadaama uu yahay England ama Britain constitution-koodu uu unwritten yahay uu ahaan jiray sidii hore ma odhanayo ma noqonayo oo constitutional crisis waxa la yiraahdo ayaa abuurmaya dabeeto waa in dib loo faaleeyaa constitution-kan in dib loo habeeyo inaga haddaan dib ugu soo noqono wadankeena Somaliland 23 sano dawlad gaar ah ahayd balse adduun weynuhu ma ictiraafsano dimaha wadan aqoonsi caalami ah haysta Soomaaliya oo wadankii ay barigi hore midowga ahaayeen ayaa wali ku xidhan oo Soomaaliya iyada inay laba dawladood noqdeen international looma ictiraafsana maxaan kaga dayan karnaa aftidii ka dhacday 18 bishii dalka Scotland wax badan baan kaga dayan karnaa horta ay horeyse Somaliland afti baa laga qaaday 97 oo madaxweyne cigaal markuu joogay ayaa afti laga qaaday aftidaas way dhacday dadka majority-gooda iyo badankoodu waxay doonayaan inay xornimo ay helaan way xaq u leeyihiin runtii Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya markaynu nidhaahno aad iyo aad bay isugu mashquulsan tahay oo danahoodiiba ayaa ka batay dhibaatooyin fara badan ayaa ka socda marka dal aynu runtii wax ka raadin karno uma arko anigu waxaan qabaa adduun weynaha inaynu tusno dal isku filan oo isku filaan kara oo ummad midaysan inaynu nahay inaynu adduunka tusno aynu halkaa ka baadi doono inaynu xornimo aynu ka helo sababtoo ah maxay waa dal aad iyo aad dalkeenu haddaynu nahay reer Somaliland dal qani weeyaan waa dal meel buqcad aad iyo aad muhiim u ah oo tubtii dhaqaalaha Afrika ay marayso ku yaala dabeeto anigu waxaan qabaa adduunku si aad iyo aad gaara ayay u jidaalinayaan ama u daawanayaan habka aynu inagu wax u maamulo aynu maamulkeenu u socdo waad daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa waa barnaamijkeeni arrimaha bulshada oo marti noogu yahay aqoonyahan reer Somaliland ah waa Maxamed Warsame Boos haddaan barnaamijkeena aan ku sii socono Maxamed waxaad ka dhawaajisay iminka in 97 dawladii Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Allah u naxariiste ay afti ka qaaday shacabka reer Somaliland aftidaasi ma waxay ahayd in Somaliland dawlad gaar ah noqoto mise waxay ahayd in maxay ahayd aftida bal noo kala cadee ta kale aftidaasi beesha caalamku ma ogeyd oo ma ka soo qayb gashay
aftidaas runtii ujeedadu waxay ahayd in aynu dawlad gaar ah aynu samaysano haddii maayo marka waxa la siiyay axdi qaran baa la sameeyay axdi qarankii iyo aftidii shacabka inay gooni isu taagaan labada ayaa la isku lamaaniyay saas aawadeed ayaa boqolkiiba 90 iyo dheeraad ay halka u vote gareeyeen ay u ogolaadeen inay sida ay Soomaaliya xornimadoodii ay dib uga laabtaan axdi qarankanna ay ku socdaan oo ay axdi qarankaas uu noqdo magaranayay kii magaranayay ay ku shaqeynayeen صح أفتيها لقاضي 97 beesha caalamku ma ka soo qayb gashay oo ma ogayn mise waxay ahayd mid dawladda Soomaaliland kaliya ay diyaarisay oo ay qaaday Soomaaliland way diyaarisay adduunkana waa ka soo qayb galay oo dad badan oo observers ah ayaa yimi oo arkay sida ay wax u dhaceen iyo dadka shacabka Soomaaliland say u rabaan inay gooni ahaan isu taagaan oo ay xoroobaan oo ay dal u noqdaan haddii aan taaba laga soo gudbay imika waqti badan uu ka soo wareegay imika haddii la yiraahdo aftiha loo qaado maxaad u malaynaysaa adiga fikirkaaga inay ka soo bixi doonto runtii aftidaas imika la qaadayo xogaa aniga shaki baa iga jira laakiin se waxay ku xidhan tahay haddii iminka maalanba Soomaaliya iyo Somaliland ay hor fadhiistaan inkastoo ay ka gaabiyeen shirarkii Soomaaliya aad iyo aad bay uga gaabiyeen oo waxyaabihii lagu ballan qaaday la ballan qaaday la yiri weyn shirka aad wada wadaagtaan oo ka wada hadashaan wixii waxaad moodaa inay koonfurta ay ka yara gaabisay marka hadday is hor fadhiistaan oo adduunku yiraahdo mar labaad afti labaad hal la qaado ya aakhirka waa wax macquul ah ma ogtahay laakiin se dadka reer Somaliland way boqolkiiba shaki kama jiro inay aftidaas ku guuleysanayaan oo ay doonayaan inay dalkooda u xor noqdaan haddii ay Soomaaliya iyo Somaliland aan idhaahdee wada hadaladii u socday Soomaaliya ka gaabisay sida aad imika noo sheegtay ama wada adduunweynaha dhan aynu aragno miyaanay habboonayn inay Somaliland ay caalamka ka dalbato afti caalami ah oo adduunweynaha dhan marxaati ka yahay in laga qaado oo rabitaanka shacabka ay Somaliland ku noqoto dawlad gaar u taagan walaal horta anigu arinta horta dawladeenay ku xidhan tahay habka ay structure-ka siyaasadooda dibadda habkay u doonayaan inay u wadaan oo taa runtii ka horboodi maayo ama ka hor dhici maayo dawladeenay ku xidhan tahay waxay marka ay shirarkaas Soomaaliya aynu la leenahay ay dhamaadaan ama aynu u aragno ama u caalweyno ama aynu u aragno inay waxba ka suurtoobaynin shirarkan oo shirar aad iyo aad u hagaas ma noqda inay markaa go'aan gaar ah ay la yimaadaan oo ku saabsan inay adduunka kala tashadaan arrimahooda maxamed baad arkaysa imika Westminster way isku dhaxyaacday baan oran karnaa markii Scotland aftideedu soo dhawaatay haddii ay suurto gashaba tan aan imika ka hadlayno sideeda saadaal oo wax imika aan ka wax jira ayna ahayn laakiin aan si saadaalinayno laga yaabo inay dhici doonto haddii ka fursan weydo maxaad u malaynaysaa adiga fikrad ahaantaada in haddii aftida la qaado ay noqoto jawaabta reer Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya horta Soomaaliya mar kastaba waxay isku dayaysaa Somaliland inayan xor noqon oo taas shak ma jiro waynu aragnaa ma ogtahay laakiin se haddii Soomaaliya u dabacdo Somaliland oo tiraahdo dadkaas ayahooda ka tashadeen wax walba way inooga sahlanaan lahayd runtii laakiin se dadka reer Somaliland ama shacabka reer Somaliland anigu saan ku arko oo ku dareemay oo ku darsay waa dad ay ka go'an tahay inay hadeed maayo ayahooda ay ka shaqeeyaan oo ay gooni isu taagaan waxa kale oo ka muuqda Somaliland hay'adahoodii bay dhisteen idaaradahoodii bay dhisteen baarlamankoodii bay dhisteen nidaamkoodii shacabkiiba dalkii dhisaya mid aan ka muuqan dalka Soomaaliya Soomaalida koonfureed marka adduunka u jeeda inaynu horumarkii dalkeena aynu ka shaqeynayno dal nabadgelyana aynu nahay oo dal doonaya in nabadgelyo ay wax walba ay ku dhameystaan aynu nahay ayaa cad oo adduunkuna runtii kama indhala way daawanayaan maxamed waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada reer Somaliland ee qurba joogta ah
كل إذا قفل بنا فكرة بولاي قفل بنا تلادو كأنه وحودن كوسعدو وتلوين لا يسكو درسدي أو بدن أن أدو سيدا دو أركتيني سومالان صاحب بدن عالم كويالتو سيدا الله سمين كرا صاحب بدن سيدا باش عالم كي سومالان أو كسبن كرتها فرق أركتي هذا أن runtii horta Soomaaliland dawladeedu aad iyo aad meemar walba u dadaalaysaa oo meel walba ay tagaan oo shacabka diasporaha aanu aan kamid ahay meel kasta waan tagnaa oo ka hadalaa qadiyada Soomaaliland waxay kala ku xiran tahay xiriir wanaagsan oo aynu dalalka jaarkeena la yeelano oo ay kamid tahay Ethiopia door weyn ka ciyaari kartaa Ethiopia runtii siyaasadda taas sababtoo maxay waa regional power weeyaan Ethiopia waxay ku jirtaa G20 ku jiraan waxa weeye kursigii AU-dana halkaas u jooga wana shacab aad iyo aad u ballaaran oo aynu cilaaqaad baa mushtari ah aynu la yeelan karno iyo xiriir haddii adduunku ama Afrika ay u arkaan dal ma garanaysaa inaynu nahay dal dadaalaya oo Soomaaliyana dawayno aragnaayo aad iyo aad bay u hagaasto xiriir wanaagsan xitaa xamar ma dhaafto runtii markay adduunku markuu arko iyo Afrika iyo ay u arkaan in dal dadaalaya aynu nahay anigu waxaan qabaa inay indhaha ka qarsanaynin oo ay يعني إنه وايو أدونك مركز أخرست ميل والباق جرائد كده ضد بدن دل فربنا يا أخو شو حسن حبك إنه وحوضنا فهمتي مركز هذا من دلالك هسي وضنا وما لنا يا اعتراف كأنه إنه سنسات سيفه كأنه نكتة ومدينا ناينو مدينا ومدينا غير سومالي لاند وحلقة دوني يعني سنة بتقليا وضنا ولا عنه يعني وكفرسان ما يسوى marka taasna waa muhiim weeyaan marka sida ay dawladdu wax wado ama shacabkeenu wax wadaan ama ha ahaadeen qoliyaha oppositionkeenu ama sida loo wada shaqeynay in loo wada shaqeeyo weeyaan iyo qurba joogteeda in loo wada shaqeeyo aynu raadino inaynu magaranaysaa xornimadeena aynu adduunka ka helno ana ma kula tahay aftida aad imika noo sheegtay 790kii la qaaday haddii imika la qaado codkii bariga la helay oo kale ma la helayaa mise hoos buu u dhacayaa mise uu ka sii badanayaa sideed ku qiyaasi lahayd anigu waxaan qabaa mid ka sii badan inaynu helayno haddii ay dhacdo inkastoo maanta loo baahnayn afti laakiin si haddii xitaa la qaado boqolkiiba 99 waa la helayaa in magaranaysaa waayo ummadii reer Soomaaliland waxay aragtaa nabadgelyada aynu wax lagu maamulayo lagu daadihinayo dawladeena iyo ummadeena dad walaalo isjecel oo iswada dhalay ayaan nahay marka waxaan qabaa in aan waxba in xal loo helayo taas maanta صح أنا محمد قرب joogta aad ka mid tahay waliba UK joogta meel badan bay Soomaaliland haday noqoto dhaqaalaha wadooyinkii la dhisay dhakhtarada caawimooyinka faraha badan ee dalku ma aha dal ictiraaf haysto oo meel kale wax ka soo galaan dadkiisa ayaa xoolahooda u hura maxaad isugu dayi weydeen aniga adiga kaliya kula hadlaynin qurbaas joogta reer Soomaaliland ee UK wali ma isku daday inay dawladda Ingiriiska kala hadasho maadaama Ingiriisku haysan jiray dalka ay kala hadasho inay ka caawiyaan Soomaaliya iyo Soomaaliland sidii laba kala dawladood noqon lahaayeen maadaama shaqadan ay jiitantay 23 sano wada hadaladii ugu dambeeyeen ilaa hadda aan wax natiijo ka soo bixin doodaas aad iyo aad bay runtii u socotaa qurba joogayga xitaa xalay iyo baryahan oo dhan aad iyo aad baa dooda fara badan internetka ka jira aan leenahay war habkeebaynu dawladeena u caawinaa habkeebaynu u baadi doonaa xornimadeena mar kastaba qurba joogo wuxuu diyaar leeyahay dalkeena inay gacan siiyaan anigu runtii saad og tahay furqaan waxaan ahay chairmanka dariiqa ceergaabo laga dhisayo magaalada London waad aragtay sidii la isugu wada yimi oo jidka loo caawiyay sidii magaranaysa dhaqaale loogu sameyn lahaa marka dadkeenu aad iyo aad waliba dadka qurba joogay aad iyo aad waxay diyaar u yihiin in dalkooda ay gacan ku siiyaan Ingiriiskana waanu kala hadalay dhowr goor ayaan la hadalay foreign affairs kan waxaan tagnaa meelo fara badan oo laga hadlo oo laga doodo ayaanu ka doodnaa oo hadaladeeda ka dhiibanaa marka yani dadaalku naguma yaraa aniga ogaanuna dadaalku idinku yareen iyo waliba waqtiga badan iyo xoog badan ee geliseen in wadada ceergaabo dhisanto rajada aad qabtaan intay la eg tahay
rajo weyn ayaanu qabnaa runtii markaan isxog wareysano runtii waayo waxaa rajo weyn xitaa naga sii gelinaysaa dadaalka ay dawladdu wado iyo shacabkeenu ay wadaan shacabkeena reer Somaliland ee dalkii ku nool say wax u dhisanayaan nabadda ay wadaan iyo dalkeena sida wax uga socdaan iyo xiriirada adduunka aynu la yeelanayno iyo safiirada iyo hadeed madaxda mar walba dalkeenii imanaysa oo soo eegaysa habka ay Somaliland wax wado waxaasoo dhani runtii rajo weyn ayayna geliyaan in magaranaysaa aan dadaalkan sii wadno صح waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeega daawadayaal oo martii noogu ahaa aqoon-yahan maxamed warsame boos oo ah aqoon-yahan reer Somaliland isla markaana ah chairmanka guddida wadada Ceerigaabo oo ururinaysa tabarucaadka ee qurbo joogta maxamed ugu dambeyntii maxaad bulshooyinka reer Somaliland caalamka ku kala nool ee ku daawanaysa aad u soo jeedinaysaa qurbo joogta waxaan oranayaa reer Somaliland isku duubnaada dalkeena waa inaynu dhisnaa oo in la dhisnaa dawladdeena iyo shacabkeena waa inaynu midownaa dad walaala ah oo aan kala maarmi karaynin oo iswada dhalay oo iswada jecel ayaan anigu runtii gaar ahaan sool baan ka soo jeedaa maadaama aan sool ka soo jeedo waxaan jecelahay Somaliland inay jirto inay dawlad noqoto in la midoobo in nabad lagu wada noolaado in horumar ay samayso in xiriir wanaagsan adduunka ay la yeelato in waayo ma kala maarmi karno waxaynu nahay dal aad iyo aad gaar u ah oo gaar wax isugu ah marka qurbo jooga waxaan reer Somaliland waxaan aad iyo aad aan ku boorinayaa in magaranaysa dalkeena ay wax ka dhisaan guud ahaanba bulshada reer Somaliland kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga maxaad soo jeedinaysaa labadaba waxaan soo jeedinayaa dadaalka aad wadaan wada dalkeena aan dhisno nabadna aan ku wada dhisno hadeed maayo sida kaliya dal waxa lagu dhisi karaa waxa weeye waa qurbo joogta iyo dadkii shacabka iyo dawladda intaas oo dhan oo midowda oo dalkooda jacayl wax ku dhisa marka waana iga muuqataa runtii aniga iyo diilo fara badan ayaan ka arkaa Somaliland inay maalmaha ka mid ah ay xor noqon doonto aad iyo aad baan maxamed u mahadsantahay sida wanaagsan ee barnaamijka nooga la qayb qaadatay waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena arrimaha bulshada oo martii noogu ahaa maxamed warsame boos aniga iyo martida sharafta leh iyo Jamal Xasan oo qaybta farsamada noo fadhiyay waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh